بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبada qiimaha iyo qaayaha inaga mudan meel walba oo aad joogtaan si walba aad inoo daawanaysaan waxaan awoodin ka leenahay jimco wanaagsan kullu caam wa antum bil khayr waxaad ku soo dhawaataan warkii fiidnimo ee raadiga iyo TV-ga caalamiga hami xaruntiisa magaalada Beledweyne warka waxaa caawa idinla socodsiin doona anigoo ah Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jamuuni qodobada ugu dooroon warka fiidnimo ee hami TV waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka oo baaritaan ka wada magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Khayre oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka ee ku soo wajahan dalkeena Soomaaliya galmudug oo soo gudbisay xubnaha ku metelaya doorashooyinka qaran ee dalkeena ku soo wajahan duqayn carruur badan lagu laayay oo ka dhacday dalka Afghanistan qodobadaasi qodobadii hadbay nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan warka raadiga TV-ga caalamiga hami xaruntiisa magaalada Beledweyne markale isku soo noqdo waxaan maalinimadu waa jimco taariikhdu ku beegan tahay 23 bisha October sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilownay ciidamada ammaanka oo baaritaan ka wada magaalada Jowhar ciidamada ammaanka ayaa maanta waxa ay baaritaan ka wadaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe baaritaankan ayaa ujeedkiisa waxaa lagu sheegay mid lagu sugayo amniga doorashooyinka maamul goboleedka Hirshabelle maadaama halkaas ay maalmihii la soo dhaafay ku qulqulayeen wufuud kala duwan ciidamada ayaa baaritaankan ku baadigoobaya dadka falalka amni darrada ka sameeya gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Khayre oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalkeena Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulanka labada mas'uul ayaa waxaa looga wada hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyo arrimo kale Sheekh Shariif iyo Khayre ayaa sanadkan labaduba ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya waxaana kulankoodu ku wehelinayay xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in labada mas'uul ay la soo hadal qaadeen dhowr arrimood oo ay ka mid tahay wada shaqayn dhow oo dhex marta iyo in si dhow ay isaga warqabaan labada mas'uul ila wareedyo ayaa sheegaya in labada mas'uul ay ku ballameen in kulamo kale ay isugu yimaadaan maalmaha soo socda isla markaasina ay bilaabaan isbahaysi siyaasadeed waxaa hadda magaalada Nairobi ka soconaya iskaashi siyaasadeed kii ugu adkaa oo lagu wajaho doorashada soo socota ee madaxtinimada Soomaaliya waxaana halkaasi ku sugan xubno miisaaniyad culus ku leh siyaasadda Soomaaliya galmudug oo soo gudbisay guddiga ku metelaya arrimaha doorashooyinka qaranka war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa waxaa lagu soo gudbiyay xubnaha galmudug ku metelaya guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal mas'uuliyiinta oo madaxweynaha galmudug u soo gudbiyay ayaa ka kooban 4 xubnood waxa ayna kala ahayeen Garaad Yuusuf Maxamuud xubin ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka Mustafa Macalin Cali Salaad xubin ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka Cabdulcasiis Cabdiraxmaan Yuusuf xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka iyo Liibaan Axmed Xasan oo ka mid ah xubnaha doorashooyinka ee maamulka galmudug ku metelaya heer federaal iyo heer dowlad goboleed horay sidan oo kala guddiga u soo gudbiyay dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Jubbaland Puntland iyo Galmudug halka wali maamulka Hirshabelle uusan soo gudbinin sabab la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo khilaaf ku aadan xagga siyaasadda ama awood qaybsiga maamulkaasi duqayn carruur badani ay ku dhinteen oo ka dhacday dalka Afghanistan ayaa lagu dilay duqayn dhanka cirka ah oo lala beegsaday dugsi lagu barta diinta oo ku yaala gobolka Takhar ee waqooyiga Afghanistan sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka waxa ay sheegeen in duqayntu ay ka dhacday dugsi Qur'aan ku yaala tuulada Hazara Qurluq ayna ku dhinteen 11 carruur iyo macalinkoodii dowladda Afghanistan ayaa sheegtay in ay ku dishay aaga duqayntu ka dhacday 12 dagaalame oo ka tirsanaa Taliban duqayntan ayaa timi kadib markii in ka badan 30 xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka lagu dilay
weerar gaadma oo ay Taliban ku qaaday gobolka. Saraakiisha gudaha ayaa sheegaya in 14 kale ay ku dhaawacmeen duqeyn dhanka cirka ah ee halkaasi ka dhacday Arbacadii. Imaamka masjid ku yaala tuuladaasi oo lagu magacaabo Cabdul Awal oo ka mid ahaa dhaawacyada lana dhigay isbitaalka ayaa warbaahinta u sheegay in isaga iyo caruur oo kaliya ay ku jireen masjidka xilliga uu duqeynta ay dhacisay. Ugu dambeyn, dowladda Faransiiska oo kordhisay bandowgii saarnaa dalkaasi. Faransiiska ayaa bandow habeenimo ku soo rogi doona magaalooyin dheeraad ah si wax looga qabto faafitaanka cudurka coronavirus sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jean Castex. Cudurka ayaa mar labaad soo laba kacliyay ayuu yiri ka hor inta dalkaasi uusan diiwaan gelin 44622 kiis oo cusub. Bandowga habeenimo ayaa waxa uu bilaaban doonaa 9 habeenimo ilaa 6 aroornimo waxa uuna dhaqangali doonaa habeenka Jimcaha iyadoo uu saameyn ku yeelan doono 46 milyan oo qofood. Wadamada ku yaala qaaradda Yurub waxa ay la daalaa-dhacayaan heerka infekshinka oo sii kordhaya sida wadamada Faransiiska, Spain iyo Talyaaniga. Isbuucyada soo socda aad ay u adkaan doontaa iyadoo tirada dhimashadana ay sare u kici doonto ayuu yiri Mr. Castex mar uu la hadlayay warbaahinta maalinnimadii Khamiista 24 saac la soo dhaafay. Faransiiska waxa uu diiwaan geliyay ku dhawaad 162 kiis oo cusub. Haddii aanan waxba laga qaban safmarkani waxa aan wajihi doonaa xaalad aad u adag, sidaas aawadeedna marka waa in aan tallaabooyin dheeraad ah oo adag aan la imaanaa ayuu yiri. Waxaynu haysanaa waqti aan wax uga qaban karno arrintan isla markaasina waqti dheeraad ah haddana ma hayno ayuu yiri ra'iisul wasaare Castex. Saaxiibada qiimaha iyo qaayaha inaga mudan waxaan intaasi ku soo afmeeraynaa warkii fiidnimo ee raadiyo iyo TV-ga caalamiga Hami xaruntiisa magaalada Beledweyne. haddii aad fadlan channelkan ku cusub tahay subscribe inoo saar, like video-ga, la wadaag asxaabtaada, halkan ugu yeer inta asxaabtaada si familkeena ay qayb kaga noqdaan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. warka waxaa soo jeedinaya anigoo Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jamuni. ninka kaamirada iyo farsamada waxaa gacan ballaaran iga siinayay saaxiibkayga DJ Qarasta. tan iyo warkaan mid lacaan intaan dib kaga kulmayno noola kulanto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.